madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa maanta ay u tahay sanad tan iyo markii uu ku guuleystay doorasho taariikhi ahayd. Haddaba waxaanu idiin haynaa warbixino aanu ku eegayno marxaladihii soo wajahay dowladdiisa iyo xilligii uu Farmaajo xukunka la wareegay. balse marka hore aynu dib u eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee siyaasadda Soomaaliya sanadkii uu madaxweyne Farmaajo hoggaanka waddanka hayay. Waa kan Qalib Xasan Baaruud. 8 bishii February sanadkii 2017 baarlamaanka Soomaaliya ayaa doorasho dadban ku doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo cod aqlabiyada kaga guuleystay madaxweynihii hore. 19 February madaxweyne Farmaajo waxa uu ballan qaaday in 2 sano gudahood lagu soo afjari doono colaadda raagtay iyo weerarada ururka Al-Shabaab. Isla bisha madaxweynuhu waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre oo helay kalsoonida baarlamaanka xukuumadna soo dhisay. 7 Juun xagga siyaasadda dibadda dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadda Khaliijka balse qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa ka soo horjeestay go'aanka dawladda oo taageeray isbahaysiga Khaliijka. 27 August dawladda Soomaaliya waxay Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa jabhadda ONLF ee dagaalka kula jirta Itoobiya. falkaasi waxa uu noqday mid cadho ku abuura Soomaali badan. sidaa daraaddeed meelo badan oo Soomaaliya ka mida waxaa ka dhacay bannaanbaxyo. dawladduna waxay sheegtay inay fulinaysay heshiis ay dawladdii ka horraysay la gashay Itoobiya. 14 Oktoobar waxaa isgoyska Soobe ka dhacay qarax argagixiso kii ugu weynaa Afrika. waxaa waddo ciriiri ah lagu qarxiyey gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. 512 qof ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan. cidima ay sheegeen qaraxaas balse dawladdu waxay ku eedaysay ururka Al-Shabaab. bilowgii sanadka madaxweyne Farmaajo waxa uu socdaal ku maray deegaano ka mid ah Puntland iyo Galmudug waxaana sidii markii la doortay oo kale loo soo dhoweeyey si kal iyo laab ah. madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay mashruucyo badan balse waxay su'aashu ka taagan tahay sida ay u hirgeli doonaan. waana su'aal ka taagan dhammaan ballanqaadyadiisii iyo guud ahaanba maamulkiisa. haddaba arrinta ugu weyn ee hortaala dowladda madaxweyne Farmaajo waa amniga. 5 bilood ka hor ayay ahayd markii gaari weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen in ka badan 500 qof. waa weerarkii ugu dhimashada badnaa abid Soomaaliya. haddaba wariyaha BBC-da Cali Nuur ayaa eegaya xaaladda amniga ee hadda taagan. cabdifataax axmed barkhadle waxa uu ka badbaaday qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe. nabarrada ku yaalla wejigiisa ayaa muujinaya inta ay la eg tahay dhibaatada gaartay. barkhadle saaxiibo badan oo uu lahaa ayuu ku waayey qaraxa. waddadaan ayaan sii maray halkaana laami uga soo dhacay. waxaan arkay meyd badan oo dhulka yaallo, dhaawacyo badan oo aniga iga daran, nin lugtu go'an tahay, nin isheeg qof oo laba lugood ay jajaban yihiin, qof iska yaallo oo nuunuuxsanayo oo dhimirkiisa aan hadda aan qiyaasi karin. walow aanan markaas wax si fiican aanan wax u qiyaasi karin oo indhaha dhiigii ka socod darteed aanan si fiican wax u arkaynin. haddana waxaan dareemayay waxa igu dhacay wax ka badan meesha inay ka dhaceen. aniga waxay soo gaar wax ka badan ummad inay gaareen. maanta inta badan dhismooyinka dib ayaa loo dhisay ama dhismo ayaaba ku socda. waxayna arrinkaasi muujinaysaa ad adayga dadka reer Muqdisho ay ka dhaxleen mushkiladahan soo noqnoqday. cidna ma sheegan mas'uuliyadda qaraxa walow xukuumadda Soomaaliya ay ku eedaysay Al-Shabaab. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wakhti yar kadib markii la doortay waxa uu ballan qaaday in uu Al-Shabaab ku soo afjari doono muddo 2 sano gudahood ah. balse dadka indha-indheeya arrimaha ammaanka ayaa aaminsan in muddadaasi aysan ahayn mid ku filan. dawladdu xoog ma qabto oo ay gees intay ka martay gees kale uga baxdo. dib u heshiisna ma samaynayso oo dadka kalsooni kama kasbanayso. arrinkaas marka wuxuu keenaa waxaan ka wadaa macnaha nabadgelyada kaliya maahane
dib u dhiska dalkan Soomaaliya oo wadan dumay ah qaabka la rabo in loo dhisaamo qaldanba ballanqaadyadii madaxweyne Farmaajo uu sameeyay waxa ugu weyneed in uu wax ka qabanayo xaaladda ammaanka maanta oo ay ka soo wareegatay muddo sanad ah ma muuqato isbeddel weyn oo dhankaasi laga sameeyay iyada oo madaxtooyada Soomaaliyeena laga sugayo in ay soo magacaawdo xilalka taliyayaasha booliiska iyo nabad sugidda oo bannaan in ka badan muddo 3 bilood ah ciidamada isku dhafka ah ee loo bixiyay ciidamada xasilinta caasimadda ayaa ku howlan sidii ay uga hortagi lahaayeen qaraxyada al-shabaab dadka reer Muqdishona waxa ay rajaynayaan in mar uun ammaan ay noqon doonto magaaladooda Ali Nuur Salaad BBC Muqdisho haddaba telefishinka BBC Soomaali waxa uu la hadlay qaar ka mid ah daawadayaasha magaalada Muqdisho oo uu weydiiyey fikradda ay ka qabaan dowladda waana kuwan kan anigu isbedel waxa waaye attitude afkaarta iyo waxaan tabi jiray hore iyo hadda midka aan qabo aad buu kala duwan marka hore wax rajo oo ii muuqatay saadaasha marka wax la saadaalinay waxaan jiray Soomaaliya 30 sano kadib 40 sano kadib 50 sano kadib yaa laga yaabaa inay nabad iyo xasilooni hesho hadda laakiin fikirkii anigu ahaan uu isbedelay oo waxaba ii muuqataba يعني مادهان كما هلا معنويان waxay muuqato in dawlad sax ah oo nidaamsan inaan helay waana ku faraxsanahay rajiyo waxaan la soo tasaahiidina subax kasta la soo toosaa maanta da guriga ka soo baxday maxaa ku noqon doonta adoo dhees ama mararka qaar noqonaysa tan iyo maalinta oo qarax soo baxay ilaa hadda waxaan dareennaa walwal iyo xanuun oo sababta inta naga maqanaa ku badan marka taas aan noogu dar awal waxaan nafsadin waa sabaalin oo ammaan saasa loo cabsanay laakiin dhibaatadaas oo kale marka aragno goobaha ciriiri oo kale marka hadda tagno kale waxa u cabsanaa nafsadeena